xamso doorashada Soomaaliya aad baad u eegaysay ma qof saaxiibatiin baa tartamaya macida wadataa jirta bas waxa laga yaabaa mustaqbalka in aad uga socoto maya wallahi wax iga jir ma lahan doorashada Soomaaliya macnaha waxaan u jeclahay ama arrimaheedu ogaada waxay tahay wadanka waa wadan run ahaantii very fragile ah waxaana la ogyahay in caqabadooyin kala duwan la soo maray dawladnimadii Soomaaliyeed ayaa hadda soo ifbixaysa marka sidaas darteed waxaan baan doonaynaa inaan aragno dawladda oo hor u sii socto maadaama ay dawladnimada Soomaaliyeed ay dhammaan faa'iido uga jirto ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aad xamso waa maasan tahay waxaa muuqata durbo dhaqdhaqaaq doorasho tani ma tahay wax ama war ama fariin farxad gelinaya Soomaalidii walaaca ka qabtay doorashada iyo caalamkii ka walwalsanaa qabashada doorashooyin Soomaaliya ka dhaca oo hufan Idris runtii tallaabooyin hor loo qaadayo doorashada lagu hirgelinayo waa mid loo baahan yahay inkastoo cadaadis una jiro dhanka beesha caalamka xalay qoraal ay soo saartay waxay ku sheegeen ama ay shuruudo ku xireen in ay dhaqaalaha bixinayaan kadib markii shuruudooyinka ay soo bandhigeen laga gudbo taasoo kamid ahayd in horta marka saddex maamul goboleed ay bilaabaan in doorashada golaha shacabka ay soo dhameeyaan sidoo kale in 2/3 ama laba meel saddexood in la soo doorto golaha shacabka intaas kadib ay arkayaan waxay dhiibi karaan marka muhiimadu ayaa waxay tahay doorashada oo bilaabato maadaama ay ka badbaadinayso dalka khalalaaso maadaama ay ka badbaadinayso in dib u dhac ay u imaato dib u dhiska dawladnimada Soomaaliyeed laakiin waxaa la rajeynayay in bishan December gudaheeda Puntland iyo Jubaland sida ay xogaha kala duwan bishan November ama December ay lagu tilmaamay xogaha aan helnay ayaa muujinayay in bishan lagu soo aadanay December ay Puntland iyo Jubaland ay qorsheynayaan in ay doorashada golaha shacabka ay bilaabaan inkastoo la ogyahay in qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada ay ku sugan yihiin dalka dibadiisa khaasatan Turkey ay ku sugan yihiin haddana waxaa la rajeynayaa in dhawaan ay hirgeliyaan ama ay bilaabaan qaybo kamid ah golaha shacabka inkastoo Soomaaliland maalmaha lagu soo aadan iyadana ku dhawaad 9 kursi ay qaban doonto marka tareenka doorashada oo hor loo sii dhaqaajiyay waxay rajo badan u abuureysaa shacabka Soomaaliyeed oo aad uga walwalsan natiijada ka soo baxi karto dib u dhaca doorashooyinka oo run ahaantii aad u sii daba dheer waxaa carababtay fariin xalay ka soo baxday dawladaha Ingiriiska Mareykanka iyo Norway dhaqaale sheegeen malaha 3 milyan iyo barmiya ama maynaya waxay yiraahdeen waa diyaar waa bixinina laakiin waxaan rabnaa marka hore shaqada in la bilaabo xabsida maxay tahay nimanka waa laga shakisan yahay sababtoo ah wadamadii Carabta ee wax dhiibi jiray Qatar ayaa ugu dambeysay 12 milyan ay ballan qaaday iyaguna waxa muuqata inay ka gaabiyeen marka waxa keenay arintan hubanti la'aanta ah goorka ay bilaaban karto doorashada sababta asaas u leeyahay waxa weeye hadda hadalan ku sheego in Jubaland iyo Puntland ay doorasho bilaabi doonaan laakiin sidoo kale waxa jira shaki ah in ay ishoristaag ku sameeyaan oo ah in gobolkii Gedo oo khilaafku ka taagna haddana lagu soo celiyo khilaafaadkii jiray maadaama ay doonayaan in ayda hal maamul goboleed lagu soo celiyo doorashooyinka golaha shacabka ama in xal siyaasadeed oo lagu wada kalsoon yahay halkaas laga gaar marka wadamada reer galbeedka aad bay u fahamsan yihiin waxa sida hoose u jiro because intelligence-gooda ayaa meel walba jooga soo way aamin la yihiin mana hubaan ayagana waqtiga ay doorashada dhacayso soo hubanti la'aanta doorashada waqtiga ay dhacayso darteed ayaa muuqata in ay iyaguna wax yar cagajiid hagaajiyaan marka waxa leedahay xal bay noqon lahayd in la helo aaminaad oo u dhaxaysa Soomaalida iyo caalamkii dhaqaalaha bixin way